وعن أول ناس كسر ولا داود يال warbixin ku saabsan dagaalka Liibiya ee u dhexeeya dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo janaalka mucaaradka ah ee Khalifa Haftar. Dagaal ooga Khalifa Haftar ayaa laga qabsaday saldhigiisa ugu muhiimsan ee Liibiya iyo maalmihiisa oo dhammaad ah ku soo dhawaada barnaamijka. ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa saldhigga muhiimka ah ee ciidamada cirka ee Al-Wadiya ka qabsaday maleeshiyaadka Khalifa Haftar. afayeen u hadlay militariga Liibiya Maxamed Gununo ayaa qoraal uu soo dhigay maanta bartiisa Twitter ku xaqiijiyay in ciidamada dowladda ay si buuxda ula wareegeen guud ahaan saldhigga oo ku yaala xuduudda Tunuusiya. warka ka soo baxay dowladda Ra'iisul Faiz Sarraj ayaa yimid kadib bil uu socday dagaal xooggan oo ciidamada xulafada ah kaga saarayeen maleeshiyaadka Haftar inta badan xeebaha galbeed ee Liibiya. Haftar ayaa war culus ku bilaabay dowladda bishii Abriil ee sanadka 2019 asagoo doonayay inuu qabsado magaalada caasimadda ah ee Tripoli. dadka amniga falanqeeya ayaa rumaysay in qabsada saldhigga Al-Wadiya oo 25 kiiloomitir u jira xuduudda Tunuusiya oo ciidamada dowladda u ogolaan doono inay dagaalyahanada Haftar ka eriyaan dhinaca koonfureed ee Tripoli. Tani waxay miisaanka awoodda Liibiya u wici doontaa dhanka dowladda waana guuldarro weyn oo soo gaartay Khalifa Haftar maadaama halkan ay ahayd halkii ugu dambeysay ciidamadiisa ka joogeen galbeedka Liibiya. waxaa sidaas yiri wariye ka tirsan Al Jazeera Maxamed Cabdiwahaab oo ku sugan Tripoli. maleeshiyaadka Haftar ayaa saldhigga ka soo qaadi jiray weerar dhanka cirka ah oo ay ku beegsan jireen goobo badan oo ciidamada dowladda kaga sugnaayeen galbeedka taasi oo hadda meesha ka baxaysa ayadoo Haftar guuldarradan saldhigga Al-Wadiya ay darbaxasho weyn ku tahay hankiisii military iyo kiisii siyaasadeedba. horena ay u jirtay in wadamada Ruushka iyo Masar ka qanceen tayada ama awoodda uu leeyahay inuu guul ka keeno ama uu ka faa'iideysto taageerada ay siiyeen. lagana yaabo in dowladda Imaaraadku maanta ka bacdi ka qancado generaalka maadaama ay 12 ka mid ah raadaradii Ruushka ay haysatay 4 ka mid ah ku soo xoojisay Khalifa Haftar laakiin 4tiiba gacantiisa laga saaray oo waxna la qabsaday waxna la gubay. ciidamada Liibiya ayaa hadda isku soo horwacday si ay dib ugu qabsadaan magaalada Tarquuna oo ah meesha kaliya ee galbeedka Liibiya ka tirsan ee gacanta Haftar ku hartay. dagaal ooga Khalifa Haftar waxaa taageera dowladda Imaaraadka, Sacuudiga, Masar, Ruushka halka dowladda caalamka aqoonsan yahay ee taageero ka hesho Turkiga iyo Qatar.